walaalayaal waad la socotaan waxaynu soo marnay wada dheer wadadaas oo wada la mid ah wada jihaad fi sabiilillah waxaynu intaa ku soo soconay aan doonayno waxay ahayd in la helo isbedelku sidii aad la socono markaad akhrisaan heshiiskii la soo gaaray qodobadii la soo seexay horta isbedelkii aan doonayno waan helnay horta hore isbedel doonkii waa guuleystay ha guuleysto waa guuleysanay wax macno ay leedahay ma aha in isbedel doonkii qodobada halkaa lagu soo seexay waxaa looga dhowrayaa ama aan ka doonayna ama uga fadhinaa in madaxweynaha axmed maxamed islaam uu dhaqangeliyo qaybteena isbedel doonku annagu waa naga daacad fulinteeda looga fadhiya haddii fulinteeda la waayo dee isbedel doonka meeshiisa ku noqonaya taa horta loo socdo haddii heshiiska Nairobi uu madaxweynahu soo siixay madaxdii annaga aan wakiilanayna ee soo saxiixeen la fulin waayo isbedel doonkii meeshiisa inaan ku noqono Soomaali kama tiin haddaba intaa ha ogaado meeshadii baan ku noqonaynaa laakiin waxaan oga fadhinaa in qodobada lagu heshiiyey oo ah dadkina waxaan doonayaa in madaxweynihii la daayay ee baarlamaanka laakiin xukuumadii iyo dhammaan dawladii qaybta ugu doorka badan oo majority inay isbedel doonka heli doono insha Allah taa baan oga fadhinaa aan ka wadowrayna oo aynu ka sugayna waxa annaga mas'uuliyadna saaran walaalayaal inaan ka shaqeyno horena uga shaqeynina ammaanka waddankan aan deganahay Jubbaland magaalada Kismaayo iyo gobolada kale waa muqaddas saaran qof kasta oo muwaadin ee Soomaaliyeed oo reer Jubbaland ah waxa kale oo rabaa inaan mid taa macnaheedu ammaanka anagoo sugayna tanaasulka aan sameynay haddaba wali waxa inoo yaala waxa way wax la socotaan in dadna laga dilay in dad badan laga xiray dadkaana laga dilay iyo dadkaana laga xiray magdhowdoodina waan sugaynaa ee waan ka rabnaa madaxweynaha magdhowga waan ka sugaynaa dadkii dhintay Allah u naxariisto dadkii la xiray oo aniga ka mid ahaa qaarkoodna wali ay xanuunsan yihiin xamar jiraan wayna ka doonaynaa magdhowdooda insha Allah walaalayaal waxa weeye maanta taariikhda qormaysa dadbaan waxaa maqlay meelaha ka oranaya heshiiskii Nairobi lagu gaaray jifada annaga taaj u saarnay madaxweynaha Tinari ma naga qarsooneen shalay markii ma naga qarsooneen may shalay naga qarsooneen markii shalay xidig iyo seeraar annaga aan taajka saaraynay oo aan dhahayna madaxweynaha nootiin annagu ma moogay inay jifa yihiin laakiin waxaan u saarnay annageena matalay Soomaaliya wax u soo qaadeen jifa wax u soo qaadeen annaga madaxweyne noo hayeen isbedel doona Sheekh Daahir waajo kulli madaxda isbedel doonka waxa la rabay inay ku qancaan haddana waxaan filayaa gogashii isbedel doonka sida uu hadda inoo sheegay xildhibaan xidig iyo Sheekh Daahir gogashii way fidsantahay gogashii dib u heshiisiinta way fidsantahay tan qodobada Nairobi lagu gaarayna waxa way waa bilow way dhameystirka waxa laga rabaa qaybihii kala duwanaa inay ka soo qayb galaan waxa laga rabaa in la dhaqan geliyo waxa laga rabaa in la ballaariyo waxa laga rabaa qof kasta qof ka maqan inuu doono uu yiraahdo kaalay ku soo biira dadkii hore ee markii hore isxijin jiray ama hore u doonayay oran jiray maamulka Axmed Madooba ma taqaanaa maanta diga xigsanina ogaado meeshii waa la isku yimid hadda waa joognaa waxaad ogaataa meesha hadda waan soo galnay cid naga saaray ka dhaana ma jirto cid Axmed Madoobe laga xigaana ma jirto waana xisaabtamaynaa waa maasantiin qeer Allah